الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي الصدونات كتاب كيني حكم وفوائد من رواية الإمام ابن القيم رحمه الله. كيد العباد. هل كان شيخ وحكو شيء معلومة أما حكمة ciwaan looga dhigay addoomaha kaydkooda iyo dhagartooda kaydku waa dhagarta binu aadamka. إن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. مؤمنك إلهي تلصارته الله كحرا haddii addoommadu dhagar ay u maleegaan allah baa subxaanahu wa tacaala isagana dhagraya oo lugahooda soo fadhiisin. alla wuu u gargaarayaa oo wuu u hiilinayaa qofka mu'minka ee la dhagrayo. ilaahay baa isagana u hiilinayaa awood isagu oon u lahayn iyo quwo, laa xawla lahu walaa quwa, isaga oon adoon awood adugu lahayn buu alla subxaanahu wa tacaala kuu soo jebinayaa oo qofkaa isaga ah ha gaadhee la ansurannaka walow bacda xiin. ilaahay wuu u gargaarayaa wakhtiba ha laga jooge. adugu ama joog ama marka aad dhimatid ama u noolow, laakiin qofka ku dhagray ee kuu maleegay dhagar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dhagrayaa qofkaa isagana. ayib, rabbi wuxuu leeyahay walaa yaxiiqu lmakru sayu ilaa biahlihi. bal u fiirso, walaa yaxiiqu lmakru sayu, kuma dhaco makriga xun, dhagarta xun ee qofkii mutaysta unbay ku dhacdaa ay ku dambaynaysaa. reer xamarku waxay yidhahdaan baan u malayn bohol khayaanaha qodin ma yidhaahdeen, inaad ku dhacaysana laga yaabe yani waxaa suuragal haddaad adigu dadka u qodo boholo iyo meelo godad ah inaad marka dambe adugu ku dhacdaa suuragala. haddaad qodina ha dheeraynin bay yidhaahdeen. marka makrigu ahalkiisa iyo dadkiisu raadsada. yaa ayuha nnaasu inamaa bagyukum calaa anfusikum. gardarrada iyo dulmigu dadka unbuu ku dhacaya, qofka daalimka unbuu ku dhacaya. yanqalibu sixru cala saaxir, waxa la yidhaahdo sixirku wuxuu kusoo gadoomayaa qofkii dhigay ayuu ku dambaynayaa. waxyaabaha aadka iyo runtii u habboon milicsiga waa qisadii nebiyullaahi yuusuf. fii suurati yuusuf waxaa ku jira yidhaahdaan culimada duruusta ka qoray, duruusun wa cibar fii suurati yuusuf. nin sheekha wuxuu ka soo saaray 100, intaan xusuusto 100 iyo waxoogaa, 120 miyay ahayd mise 100 iyo intaas oo xikmo iyo darsi laga qaadanayo fii suurati yuusuf ayaa ku jira. haddii aan soo qaadno tusaale qisada yuusuf, makriga meesha ay waa qima filkayd baa la yidhahdaa. addoommo sida bini aadam loo dhakro meesha ugu sarraysay suuraddu ina baraysaa, iyo dadkii wax dhakray oo iyaga naftoodii adduunka wax lagu tusiyey. markii nebiyullaahi yuusuf uu ka hadlaayey makrigii, qisadii uu ka sheekeeyey, yani qisadii uu u sheegay ilaahay subxaana wa tacaala uu tusay, id qaala yuusufu liabiihi yaa abati inii ra'aytu axada cashara kowkaba washamsa walqamara ra'aytuhum lii saajidiin. qisadaa markuu arkay oo riyadii la tusay uu riyooday ayaa wuxuu ku yidhi aabihiina uu u jawaabay, qaala yaa bunaya laa taqsus ru'yaaka calaa ikhwatika fayakiiduu laka kayda ina ashayطaana lilinsaani caduwun mubiin. wuxuu yidhi maandhow, wiilkaygiiow, ha u sheegin riyadaada qofna, walaalaha ha u sheegin. bal u fiirso, waa walaalihii aabbihii dhalay, laakiin bah kale ay kala ahaayeen ka waaweynaa. ha u sheegin riyadaada. maxaa jira haddaad u sheegto oo fayakiiduu laka kaydaa, markaa dhagar bay kuu maleegayaan, dhagar bay kuu dhigayaan. shaydaankuna cadow buu inoo yahay oo wuxuu ku tuuray ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dam baa la yidhahdaa. shaydaanku qofka jirhkiisu ku dhex socdaayo, walaalahii buu waxun u sheegi, wiilkan yar baa saas noqon doona,
wiilkan yar baa idinka sarrayn doona, aabbuhu idinka jecel yahay, adduun baa la mariyey halkaa. marka halkaasuu shaydaan kaga tuuray ilaa walaalkood meeshaad ogeyd ay ku hubsadeen, ceel ee maaragtay lagu riday, dad ay ka iibsadeen, addoon uu noqday, la kala iibsado, intaa indhahay ku hayeen. laakiin gebagabadii maxay ku dambaysay? halkee ku dambaysay? walaalihii inay isagii oo boqor ah, madax ah, adduunyo oo dhan gacanta timid, ay soo mutaan, xoolo u soo raadsadaan, nolol u soo raadsadaan, raashin u soo raadsadaan, lugihiisa ay yimaadeen. markaasna qisada xitaa uu ka qariyay, markuu isagu waxaas dhan uu fahamsanaa, laakiin uu ka qariyey maaragtay waxay ahaayeen iyo waxay sameeyeen iyo wixii ay ku sameeyeen, uu markii dambena uu ka qariyey, uusan tusin. laa tathriiba calaykum alyowm, maanta waxba laydinma haysta buu yidhi, orda iska dhaqaajiya, ilaahay subxaanahu watacaala hinoo wada dhaafee iska socda ayuu yihi, maanta cidna waxba idinma haysato. waxay noqotay wax aad iyo aad u cajab badan. qaaluu tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunna lakhaati'iin qaala laa tathriiba calaykum alyowma yakfiru allahu lakum wahuwa arxamu araaximiin. iska dhaqaajiya buu yihi, waxba maanta qofna idinma haysto. sidaas uu ku fiican yahay cafwiga. qofka haddaad aragto iduu ilaahay kuu soo jebiyey oo lugahaaga uu yimid, in lagu sii maaragtay lagu sii digdigtaayey ma habboona. ilaahay subxaanahu watacaala hayna sugo, rabbina hayna xifdiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.